مسؤولين كترسن دولة goboleedka Jubbaland ayaa baaq nabadeed u diray dadka ku dagaalamaya deegaanka Xiraale ee gobolka Mudug sida warkan uu ku soo diray wariye Maxamed Macalin Aadan kulankan oo ah mid baaq nabadeed loogu dirayo dhinacyada ku dagaalamayo deegaanka Xiraale waxa goobjoog ahaa ugaaska beesha Surre Salaadiin Xulmaawdiin aqoon-yahano qurba joog siyaasiyiin gudoomiyaha deegaanka Boolgaraas iyo xildhibaan Cabdullaahi Carab oo ka tirsan golaha shacabka wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha Jubbaland dhinacyada dagaalamaya waxay ka codsanayaan inay dawladda joojiyaan wax kastana lagu dhameeyo wada hadal loona naxo shacabka masaakiinta ee markaasi lagu dul dagaalamayo ugu horeyn waxa baaqan diraya ugaaska guud ee beesha Surre ugaas Gaarane ugaas Aadan ugaas Cusmaan iyo wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Ibrahim Cabdi Xasan Naadiyow walaalahayga isku laayay degmada Xiraale aad baan uga xanuunsanaynaa ka dhintay waa kaygi kan dhaawacmayna waa kaygi وإلمهي ماشان waxaan ugu ururnay walaalahan inay dibdan baxabadaas inay xabadaas joojiyaan inay xabadaas ay joojiyaan dibdan inay xabadaas joojiyaan ayna ku degdegin ay ka qoomeeyaan intii hore dhimatay intii dhaawac samiriya iman Allah naga siiyo wixii dhintay wixii dhaawacmayna Allah noo caafiyo noo leeyahay waxaan si guud ahaan ugu baaqaynaa anigoo magacaygu yahay Ibrahim Cabdi Xasan waxaan ku baaqaynaa in dhiiggaas la badbaadiyo xabadaasna la joojiyo wixii dhintayna Allah u naxariisto waxa nool Allah u taameero dadka qaasha oo wax garadka oo culimada waxa leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqa Ilaahay ka cabsada qof rixima eela oo muslima dhiiggiisa in qaali ku noqotaan inuu daato arintaas arin sax ma aha dhalinyarada waxa leenahay iyo dadka hadii Ilaahay raali ka noqdo yararkaana waxa leenahay waxa dilaysan waa walaalkiin maalin maanta aan ahayn arintaas way dhamaan doontaa dhulka iyo arada iyo eelkaba ha loo turo yaan odayaashan iyo hadii Ilaahay raali ka noqdo dadkan danaha gaarka ah inay ku shaqaysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala na ka baqa qof walba oo saad raali ugu noqoto walaalka inaad disho oo dhiigiisa aad saad raali ugu noqoto arintaas arin adag weeye mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku baaqaynaa dhiigaas in la joojiyo wixii dhintayna Allah u naxariisto inta loona Allah noo caafiyo xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji Cabdullaahi Carab oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka codsaday walaalaha deegaankaasi ku dagaalamaya inay aqbalaan baaqan isla markaasina ay xabada joojiyaan waxaan baaq u direynaa walaalaha ku dagaalamaya deegaanka Xiraale ama degmada Xiraale oo dagaalkoodana uu soo noqnoqday noqoshadaas iyo dagaalka meesha ka dhacaya iyo dhiigga dadka walaalaha la daadinayo oo ilaahay hadda wax codgudaana ama wax la dhihi karo oo aqliga geli kara oo isku dilayane aan ilaa haddaba la garanaynin intii dhimatay waxaan leenahay Allah u naxariisto inta dhaawacantayna waa ilaahay u boogadhayo inta nool meesha joogtana dadka qolada ah iyo qabiilada deegaanka degan ha loo turaan leenahay dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhintay sidoo kale waxaan baaq u dirayaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Galmudug inay gacan ka geystaan sidii dadka loo kala dhaxgeli lahaa oo dhiigga daadinay loo joojin lahaa waa mas'uuliyad ayaga saaran waa mas'uuliyad aakhira la warsan doono haddaysan ku bixin waxaan kaloo baaq u dirayaa dadka walaalaha ah ee diasporada iyo dalka Soomaaliya ku nool inay u soo gudbadaan dadka dhaawaca ee tirada badan ee isbitaalada Muqdisho la keenay Maxamed Macalin raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland degmada Dowlad Soomaaliya